السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته walaalyaal kusoo dhawaada darsigeeni afaraad ee maanta waxaan uga hadlaynaa darsigeena afaraad wax loo yaqaano list waxaa loola jeedaa haddii adiga aad rabto inaad meel aad iskugu keento nambaro iyo magacyo iyo wixii la mid ah ayaad waxaad isticmaalaysaa waxa loo yaqaano list markii la joogo Python programming language. maanta idan darsigeena waxaan uga hadlaynaa list. marka ugu horeysa waxaad abuureysaa number. marka labaad waxaad abuureysaa string waxaan kusoo sheegnay combination of characters ayaan kusoo sheegnay waa xarfo oo la isku keenay sida magacaaga magacayga iyo wixii la mid ahba waa string. waxaan kaloo sameyn doonaa sidii markaan abuurno list aan ugu dari lahayn number ama magac aan ugu dari lahayn iyo sidii magac aan uga tirtiri lahayn iyo wixii la mid ah ayaan maanta sameynaynaa hadii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka raali noqdo. soo aan bilowno marka hore waxaan abuureynaa numbers ayaan abuuranaynaa ama tiro ayaan abuuranaynaa. marka waxaan leenahay numbers oo numbers aan soo gaabiyay is equal waxaan leenahay 12, 23, 34, 45, 55. waxaan leenahay enter. saan waxaan ku abuurnay waxa loo yaqaano numbers waa numbers oo list ah ayaan abuurnay oo taxan. haddaan rabno inaan soo daawacno maxaan sameynaynaa ama soo bandhigno waxaan leenahay numbers enter ayaan leenahay wax error ah ma jiraan soo bandhignay. marka labaad waxaan abuureynaa tilaabada labaad aan qaadayno waxa waaye waxaan abuureynaa names ama magacyaal ayaan abuureynaa ama strings ayaan abuureynaa. aan abuurno waxaan leenahay names equal round bracket then halkan waxaan kusoo mention garaynaynaa ama soo gelinaynaa magacyadii. waxaan leenahay Ahmed, Ali, Abdulaziz enter. waxaan abuurnay strings ayaan abuurnay oo list ah iyo waxaan kala abuurnay numbers ayaan abuurnay. marka halkan sidii asharadii aan hore soo marnay aan soo sheegnayba halkan waxaan isticmaali karnaa waxa loo yaqaano muujiye ama index sida aad taqaanidba. haddii aan isticmaalno muujiye numbers aan isticmaalno aan soo qabno numbers waxaan leenahay muujiye. marka muujiyaha koowaad waxa waaye 0 ayuu ku bilaabanaa waa 12 waa 0 waaye 23 waxa waaye 1 waaye 34 waxa waaye 2 waaye 45 3 waaye 55 4 waaye. marka muujiyaha koowaad aan soo qabsano waxaan leenahay 0 enter 12 ayaan. sida hore aan soo sheegnayba computerka markuu tiro ama wax xisaabinayo wuxuu ka bilaabaa 0 ayuu ku bilaabayaa. sidaas daraadeed 12 waxay ku beegan tahay 0 ayay ku beegan tahay. marka 12 ayaa ugu horeysa noo soo baxday markii aan muujiyaha 0 aan soo dooranay. sidaas la mid ah magacyadana waa soo dooran iyagana waxaan leenahay names waxaan leenahay 0. maxaad u malaynaysaa inay noo soo baxayso? waxaan rabnaa inay noo soo baxdo Ahmed. ma error sameynay aan ku celino names ayaan leenahay waxaan rabnaa inay noo soo baxdo 0 haddaan Ahmed inay noo soo baxdo rabnaa enter ay noo soo sababtoo ah 0 waxay ku toosan tahay Ahmed ayay ku toosan tahay. Ali wuxuu noqonaa 1 Abdulaziz wuxuu noqonaa 2 ayuu noqonaa. marka aan isku geyno sida aan soo sheegnayba magaca u bixinay magaca doonto ayaad u bixin kartaa. waxaan dhahnaa isku dar isku dar waxay la mid tahay. marka waxaan leenahay waxaan soo qaadanaynaa Abdulaziz iyo Ahmed iyo Ali iyo waxaan rabaa inaan isku darno tirada kale oo ka salaysa. marka waxaan leenahay open square bracket then waxaan leenahay names names soo xirinaynaa enter. okay way shaqaysay. waxaan leenahay isku dar ayaan soo daawacaynaa enter. marka dhahno waa kasaa marka ugu horeyso waa numberskii waay. marka labaad waa magacyadii. marka sidaan ayaan isku keeni karnaa.
tilaabada kale aan qaadayna ayaa waxay tahay tiro ma ku dari karnaa. waxaan ugu dari karnaa tirada dhammaadka ayaan ugu dari karnaa, kala bar dhexda ayaan ugu dari karnaa, bilowga ayaan ugu dari karnaa. marka maxaan isticmaalaynaa functions ayaan isticmaalaynaa oo remove oo ka saarid meesha number laga saaro, delete oo number meesha laga tiraayo, iyo insert oo number lagu soo daraayo, iyo pop ayaan isticmaalaynaa. marka append function la dhahayo, append waxa waaye number ayaa lagu soo darayaa listiga. marka waxaan leenahay numbers dot waxaan leedahay append, waxaan leenahay u aqbalay. marka waxaan leenahay waxaan ma isticmaalayno waxa loo yaqaano square bracket, ma isticmaalayno halkan haddaan rabno inaan kusoo darno number waxaan isticmaalaynaa round bracket ayaan isticmaalaynaa. haddeertaan marka waxa waaye meesha ugu dambeyso ayaan rabnaa in lagu soo daro 66. marka waxaan leedahay soo daabacbal soo muujibal, waxaan leenahay numbers enter. markaan dhaxno waxay noo soo baxaysaa 55, waxaa ka dambeeya 66 ayaan meeshan kusoo darnay ama 66. tilaabo kale aan sameyno, haddii aan rabno inaan wax kusoo darno inta u dhexeysa 23-34, haddaan rabno inaan meesha u dhexeysa aan rabno inaan wax kusoo darno, maxaan sameynaynaa ama number aan kusoo darno, waxaan isticmaalaynaa waxa loo yaqaano insert ayaan isticmaalaynaa kusoo dar. marka waxaan leenahay numbers dot insert. marka waxa waaye waxaad furinaysaa waxa waaye mar labaad sameynayna round bracket inaan isticmaalno. marka waxaan leenahay numbers dot waxaan leenahay insert round bracket, open round bracket. marka waxaan leenahay index number 2 comma waxaad kusoo dartaa 77 kusoo dar here enter inoo shaqeysa. marka haddaan numbers aan soo daawacno waxaa noo soo baxayso index number 2 oo lagu soo daray 77 ayaa noo soo baxayso. saan horey soo sheegnay bo 12 0 ay ku beegan tahay, 23 1 waaye, marka 34 waxa waaye 77 waxay noqonaysaa index ama muujiyaha labaad ayay noqonaysaa. marka waxaan isticmaalnay insert ayaan isticmaalnay, append ayaan isticmaalnay oo loola jeedo kusoo dar number ama waxay noqotaba wax kusoo darsanayso. insert ayaan isticmaalnay oo adiga haddii aad u baahan tahay inaad meel dhexe wax kusoo darto ama number kusoo darto aad isticmaalayso. tan kale rabno inaan isticmaalno waxa waaye remove waaye, waxaan ka saaraynaa meesha number ayaan meesha ka saaraynaa. marka maxaa isticmaalaynaa, waxaan leenahay numbers dot waxaan leenahay remove ayaynu leenahay numbers dot remove. marka round bracket ayaa furanaysaa. marka numberka aad rabto in meesha laga saaro ayaad waxaad kusoo mention garaynaysaa ama soo gelinaysaa round bracketka dhexdiisa. 23 ayaan rabnaa in meesha laga saaro enter. numbers aan soo daawacno 23 meesha kuma jirto. marka waxaan kala isticmaalaynaa function kale oo la yiraahdo pop ayaan isticmaalaynaa. marka halkan waxaan isticmaalaynaa waxa loo yaqaano pop ayaan isticmaalaynaa. marka waxaan leenahay numbers dot pop ayaan leenahay open round bracket. marka halkan ayaan waxaan kusoo mention garaynaynaa index numberka aan rabno inaan meesha ka saarno. sax cilada aan sameynay ayaa waxay tahay waxaan rabnaa inaan isticmaalno muujiye ayaa la rabaa in la isticmaalo, meesha lama rabo in isla numberka la isticmaalo. marka saas daraadeed waxaan leenahay numbers dot pop ayaynu leenahay. markaas kadib ayaan meeshan waxaan kasoo mention garaynaynaa index numberka ama muujiyaha aad rabto inaad meesha aad ka saarto. muujiye 2 ayaan rabnaa inaan meesha ka saarno. marka 2 ayaad qoranaysaa, waadna xiraysaa, enter ayaad leedahay. marka muujiyaha labaad waa 34 ayaa meesha laga saaraya. marka haddaan soo daawacno waxaa la rabaa inaysan 34 meesha ku jirin. marka numbers waad ujeedaa 34 meesha kuma jirto ama 34 meesha way ka baxday. maxaa kale oo noo soo haray oo anaga aan rabno inaan isticmaalno? ka waran haddii aan sameyno numbers dot pop aan dhahno wax number ah ama index ah ama muuji ah meesha aanan kusoo mention garaynin ama meesha aan soo gelinin, maxaa dhacaya? aan baroobayno. waxaan leenahay numbers dot pop enter ayaanu leenahay. maxaa soo baxayo? waxaa soo baxayo numberka ugu dambeeyo 66 ayaa soo baxayso. marka aan soo daawacno numbers
66 ayaa meesha ka baxday. marka haddii number meesha aan soo gelinin oo meesha iyadoo eber tahay aan ka tagno, micnaheeda waxa waaye numberka ugu dambeeya meesha ka saar waaye. marka waxaan soo isticmaalnay waxa la yiraahdo pop ayaan soo isticmaalnay oo loo isticmaalo in wax laga tiro meesha. waxaan kaloo soo isticmaalnay waxa la yiraahdo insert oo aan rabno markaa oo isticmaalayno markaa rabno inaan number aan kusoo darno meel dhexe inaan wax kaga soo darno. haddii aan u baahanahay 10 iyo 20 inta u dhaxayso camal, tusaale ahaan haddii aan rabno number inaan kusoo darno waxaan isticmaalaynaa insert. haddii aan rabno number kaliya inaan tirno waxaan isticmaalaynaa pop ayaan in pop waxaa haddii numberka aad rabto inaad tirto indexkiisa aad meesha kusoo muujiso, isla numberkii aad meesha kusoo muujisay adi aad amartay ayuu tirtiray. haddaadan waxba meesha aadan kusoo bandhigin ama wax amar aadan siinin oo iyadoo banaan round bracketka isagoo banaan aad ka tagto, micnaheedu waxaa waaye numberka ugu dambeeyo tir. waxaan kaloo isticmaalaynaa meesha function oo la yiraahdo del oo micnihiisu tahay tirtir ayaan isticmaalaynaa. aan isticmaalno marka waxaynu leenahay del space namis. marka halkan waxaan kasoo mention garaynaynaa numberka aan rabno inaan tirno. index number 2 wixii ka dambeeyo tir, ama index number 1 wixii ka dambeeyo tir ayay noqonaysaa. marka waxaan meesha kusoo qaadanaynaa waxa la yiraahdo marka index number 2 noo soo dor colon xir enter. may cilada sameynay inaan round bracket aan isticmaalno maaha, waxaan isticmaalaynaa square bracket ayaan isticmaalaynaa. marka waxaan leenahay del space namis, waxaan leenahay number 2 colon enter. marka namis haddaan hadda soo daawacno waxaa noo soo baxday 12 iyo 77. micnaheeda marka waxaa waaye muujiyaha labaad wixii ka bilowdo ilaa dhammaadka waa la tirtiray. ka waran haddaan rabno hal number iyo wax ka badan inaan hal mar aan kusoo darsano, waxaan soo isticmaalnay append function ayaan soo isticmaalnay. append function haddii aad rabto inaad isticmaasho waxa kaliya aad kusoo dari kartaa hal number ayaad kusoo dari kartaa halkii marba. haddii aad rabto ka waran multiple numbers inaad hal mar aad kusoo darto ama number badan inaad hal mar aad kusoo darto, in that case waxaad isticmaalaysaa waxa loo yaqaano extend ayaad isticmaalaysaa. marka aan kusoo darno multiple values ama hal iyo wax ka badan oo number, sababtoo ah markaa soo isticmaalaynay append waxaan halkii mar aan kusoo dari karnay hal number. marka number badan si aan ugu soo darno waxaan isticmaalaynaa wax loo yaqaano extend function. marka waxaynu leenahay namis dot extend ayaynu leenahay. marka waxaan isticmaalaynaa round bracket, waxaan isticmaalaynaa square bracket, labadaba ayaan isticmaalaynaa. marka halkan ayaan waxaan kasoo mention garaynaynaa inta number aan u baahnaa inaan meesha kusoo darno. marka waxaan rabaa inaan meesha kusoo darno 44,55,66,88 intaan ayaan meesha kusoo daraynaa. marka waxaan leenahay xir enter. marka namisaas haddaan soo daawacno waxaa noo soo baxayso sida tan. marka halkan waxaan kusoo darnay index ama muujiyaha labaad wixii ka bilowdo waxaan kusoo darnay ilaa iyo 4 number ayaan kusoo darnay. numberka ugu weyn iyo numberka ugu yar see kusoo saaranaynaa. marka waxaad leedahay maximum halkan. marka waxaan kusoo mention garaynaysaa namis, waad xiraysaa enter. namis marka numberka ugu weyn waxaa waaye 88 waaye. midka ugu yar haddaan rabno symbol asna saanaad haysaa, waxaad leedahay mins waa kasaas 22 ayaa ugu yar. waxaad kaloo isticmaali karnaa nambaro iyo magacyo iyo weliba number oo point la socdo ayaan ku isticmaali karnaa in lista. markaa soo sheegayna soo qeexinay ayaa waxaan ku dhahnay markaa u baahan tahay inaad nambaro iyo magacyo inaad isku meel aad isku keentid. haddaad u baahan tahay waxaad isticmaalaysaa list. marka aan tijaabino waxaan leenahay values open square bracket. marka waxaynu leenahay 9.5 comma Ahmed. marka waxaan leenahay
25 waa xireynaa enter ayaynu leenahay way shaqays marka values haddaan nahno san ayaa noo soo baxaysa marka casharkeena maanta wuxuu koobnaay list iyo sida loo isticmaalayo bal ayaan uga hadli doonaa haddii ilaahay subxaanahu watacaala ka raali noqdo walaalayaal casharkayga haddaad ka heshay like subscribe casharkii xiga waxaan uga hadli doonaa haddii ilaahay subxaanahu watacaala ka raali noqdo waxa loo yaqaano tubal. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.